السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا هبوضا وضيال هالكني وورمحان تيفي كسور دوادا وركي قدام بيه صومالي عالمكا قضبضا عن إذن هينونا وحا أقوى وين قدقا دورشوين كهير فدرال أياكو قعان سيران نتيجة دورشدي كورسيغا سيديتان إيا الليح أو كسو بحيلا تليها أمنيغا قران كفاد ياسين حاجي داهر هدبوا محاي سببتا يودي دينهين قدقا دورشوين كهير فدرال hirshabeelle ayaa soo saartay jadwal saameynaya heshiiskii golaha wada tashiga qaran cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa shaaciyay xog 16 milyan oo lagu qaatay heshiiskii shidaalka Soomaaliya haddaba waa maxaa sababta uu shaaciyay arrintaani cabdiraxmaan cabdishakuur warsame xog ayaan idinkaga haynaa daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa ku daawan doontaan ee soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalka leegareeya ee sheergareeya ee gaarsiiya saaxiibadiin وهاجا داوديال aynu ku bilownay gudiga doorashooyinka heer federaal ayaa ku gacan sayray natiijada doorashadii kursiga 86 oo ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir qoraal ay gudiga ay soo saareen ayay ku shaaciyeen natiijada hordhaca ee doorashada shan kamid ah kuraastii shalay lagu qabtay magaalada Beledweyne ee deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle ayaga oo reebay kursiga lixaad ee Hob 86 gudiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fiid waxba iskama bedelin go'aankii ay ku hakiyeen kursiga 86 sida darteeda waxba kama jiraan natiijada talaabadii maanta lagu baalmaray ayaa lagu yiray qoraal ay soo saareen gudiga doorashooyinka heer federaal go'aanka gudiga ayaa hadii aan waxba iska bedelin waxa ay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo xildhibaan ku noqday magaca Fahad Daahir Ahmed ka hor istaagi doonta shahaadada kama dambaysta ee xildhibaannimo oo ay bixinayaan gudiga doorashooyinka heer federaal maamulka Hirshabeelle ayaa horay ugu gacan sayray qoraal ka soo baxay gudiga doorashooyinka heer federaal oo lagu hakiyay doorashada kursiga Hob 86 kadib doorashadii shalay lagu qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan dhanka kale hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay heshiiskii uu wasiirka batroolka Soomaaliya u saxiixay shirkadda shidaalka baarta ayaa soo bandhigay xog hor leh oo ku saabsan lacagtii lagu kala qaatay heshiiskaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo shir jaraa'id qabta ayaa sheegay in shirkadda Coastline Exploration laga leeyahay dalka Mareykanka oo ay ka heleen xogta heshiiskaasi isla markaana ay ogaadeen in lagu kala qaatay 16 milyan oo dollar waxa uu sheegay in 7 ceel oo ah kuwii ugu muhiimsanaa ceelasha shidaalka ee Soomaaliya lagu saxiixay min 2 milyan oo dollar taasi oo tirada lacag ceeshaasi lagu kala qaatay ka dhigaysa 14 milyan sidoo kale waxa uu sheegay in dhinacyadii Soomaalida ahaa ee ka soo shaqeeyay fududeynta heshiiskani ay qaateen 2 milyan oo dollar tirada guud ee lacagta ku baxday heshiiskaasi ayaa ah 16 milyan oo dollar sida uu sheegay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in heshiiskaasi uu door fiican ku lahaa wasiirkii waxa uu sheegay in madaxweynaha uu la ogaa heshiiskaasi sida aad ogtihiin wax kasta inta sameeyo ama amro ayuu iska fogeeyaa Farmaajo balse waa cadahay in asagu uu diray wasiirka saxiixay heshiiskaasi ayuu yiri hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxa uu ku taliyay in xogta heshiiskaasi iyo ceelashii la saxiixay ay xukuumaddu la soo wareegto oo laga qaado raggii isku dayay in ay lunsadaan hanti dhowraha guud garyaqaanada guud iyo xukuumadda waxaana ka rabnaa inay cadeeyaan mowqifka ay ka taagan yihiin arrintaani ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu sheegay in qorshaha dhinacyada Soomaalida ah uu ahaa in heshiiskaasi ala baahin basa shirkadda ay ku qasbaneyd inay baahiso oo website-keeda ku daabacdo inay Soomaaliya heshiis shidaal la gashay 4 maalmood kadib markii la kala saxiixday heshiiskaasi sababta ku kaliftay inay shirkaddu ay baahiso heshiiskani ayuu Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku sheegay in shirkaddu aysan awood u lahayn inay shidaalka qaadato balse ay doonayso in shirkadaha waaweyn ee shidaalka baara ay tartan u qabato si shirkadii guuleysatay ay u xirmooyinka ay u saxiixday Soomaaliya وهجاك داوديال
dhanka kale guddiga siid ee Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwal cusub oo saameeyay heshiiskii doorashooyinka dalka ay horay u gaareen golaha wada tashiga qaran si doorashada baarlamaanka dalka loogu soo gabagabeeyo 25 bishan Febraayo 2022 warqad ka soo baxday guddiga ayaa waxa lagu shaaciyay liiska doorashada 7 kursi oo kamid ah kuraasta taal magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle kuwaasi oo guddigu shaaciyay in doorashada la qabanayo 26 bishani waana maalin heshiiskii Muqdisho lagu gaaray ee ahaa 25 lagu soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka Soomaaliya balse tani ayaa cadeyn u tahay in Hirshabeelle aanay doorashada ku soo gabagabeyn karin waqtigii lagu ballamay kuraasta doorashadooda la shaaciyay ayaa taala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ee dhinaca kale maamul goboleedyada Jubbaland, Puntland iyo Galmudug ayaa iyaguna ka sii dambeeya Hirshabeelle maadaama aysan wali gudagelin kuraasta taala deegaan doorashada labaad taasi oo caqabad ku noqon doonta heshiiskii doorashooyinka dalka guddiga Somaliland kan koonfur galbeed ayaa noqday kuwii ugu horeeyay ee ku dadaala dhaqangelinta heshiiskii soona saaray xildhibaanadii ugu badnaa ee laga sugayay si kastaba doorashooyinka Soomaaliya ayaa marar badan u dib u dhac weyn ku yimid taasi oo sababeen caqabadaha ka jira dalka oo ugu horeyso xaaladda taagan ee kala guurka waa hagaaga daawadayaal inta ayuu ku dhan yahay warkii ka daawanayseen Warmaxan TV warkan kiisa xiga inta ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo